السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxayna soo socday sidii la yaabka lahayd ee gabadha guriga ka shaqeynaysay haddana guriga ku soo laabatay doonaysay gurigaas in ay burburiso. marka waxaa dhacday ninkii iyo gabadhii shaqaalaha ahayd waxay bilaabeen in ay kulmaan maalmaha jimcaha ee gabadha fasaxa ay lahayd ayay bilaabeen in ay kulmaan. runtii way u hirgashay gabadha in ay ninka maskaxdiisa ku guuleysato, balse laakiin haqa sidiisa banaanba ama ha soo daaho ama ha soo degdego waa kii soo daahira. qofka guriga lahayd ee gabadha guriga lahaydna waxay ahayd gabar daacada oo nadiif ah oo maasha Allah ah oon cidna dabagelin. marka waxaa dhacday gabadhii iyo ninkeedii gabadha shaqaalaha waxay kulmayeen ilaa muddo 3 bilood 4 bilood ay kulmayeen. maxaa ka dambeyn doona marka? runtii qof walba oo dhabarka dadka ka toogta waxa uu dambeyn doona wajaxumo iyo fadeex. waxaa dhacday gabadhii guriga ka shaqeynaysay markaan waxay bilowday guriga in isla haysiiso oo gabadha guriga lahayd ay ku madax adeegto waxyaabo far badan oo awal ay qaban jirtay oo gabar fiican ay ku ahayd ay bilowday in ay ka amar adeegto. waxayna isku haleynaysaa ninkeedii oo ay saaxiib la tahay, laakiin ma oga iyada in mar waliba gabadhan ay tahay gabadha guriga leh iyadana ay tahay shaqaale. taas maskaxdeeda kuma jiro, laakiin mar waliba waxay ku qaldaneed in ay guriga isla haysiiso. haddaad doonaysid inaad siyaasad isticmaashid adaa shaqaalena waa tahay siyaasad inaad isticmaashid haddaad doonaysid waa in aad mar walba siyaasadaada aad isku darin iyo shaqaalinimadaada. marka waxaa dhacday gabadhii in ay ku fikirtay gurigaba inay leedahay oo gurigaba ay maamadiisa iyada tahay. marka waxaa dhacday howlihii amar adeeg markay ka keentay gabadhii waxay dhahday walaalay haddaadan toos iigu shaqaysan karin walaalaan nahay problem ma jiro, waxaan rajeynayaa in ay shaqadan dhib kugu noqotay, waxaana doonayaa inaad iska tagtid. runtii markii la dhahay inaad iska tagtid waxay tiri hay waan tagayaa, bishaan markaan dhammaysto waan iska tagayaa. waxaa dhacday marka maalinta ay saas dhahayso waa maalinta khamiista ah, berito kalena ay kulmi rabaan ninkii ay sheekaysanayeen ay guriga lahaa. runtii waxay dhahday way iska tagtay maalinta jimcaha fasaxi ilan bishii waxaa ka dhiman ugu yaraan 10 cisho ayaa ka dhiman. marka waxaa dhacday in ay ninkii meeshay ku kulmi jireen ay kula kulanto. waxayna ku tiri xaaskaagana waa isqabanay, waxayna igu tiri shaqada ayaan kaa saarayaa. wuxuu yiri shaqada kaama saari karto oo guriga aniga ayaa iska leh. marka asana kuma fikirin xaaskiisa qalbigeeda inay xumaanayso gabadhan shaqaalahana inuu isla haysiin karo ayuu isku haystay. runtii waxay meesha ka qaaday kalsooni, waxayna ku fikirtay gabadhan adiga ayaa ka mudan, laakiin haba ka mudnaatid gurigan oo dhan ku yeelan kartaa. runtii markii ay shaqada ku soo noqotay waxay dhibsatay oo kiraahsatay qoftii guriga lahayd gujigeedii iyo feeskeedii iyo hadalkii ay ku dheysay ay soo maskaxda ku soo noqonaysay. shaydaankan wuxuu ugu dhigay waxyaabo aan caadi ahayn. marka waxaa dhacday gabadhii in maskaxdeeda ay ka bixi weyso guriga ayaan ka saaray, shaqada ayaan ka saaray. runtii waxay ku fikirtay fikir aad iyo aad u foolxun. qof walba ku fikirana uu khasaare kala kulmi karo, ama ha noqoto mid adduun ama ha noqoto mid aakhiro. run ahaantii waxaa dhacday gabadhii in ay ku fikirtay gabadhanba in ay isdhaafiso oo wajigeedaba ay dhaafiso, adduunkuba ay dhaafiso. run ahaantii ma ahan fikirkaas fikir fiican, laakiin iyada waxay la noqotay fikrad fiican. waxaa dhacday in ay isku dayday gabadha in ay caadi u disho oo guriga dhexdiisa inay ugu gasho ay ku caajiso, balse laakiin awood ahaan iyo jir ahaanba gabadha guriga lahayd ayaa awood badneed. inkastoo qofkii ku dilaya oo sababku noqonayo iyo hadduu ka tabaryaraada uu ku dili karo, balse laakiin haddana waxay ku fikirtay in gabadhan aysan awood ahaan ku gaarin oo gacanta kula tagi karin. runtii fikirkaas wuxuu waa fikir aad iyo aad u xun.
run ahaantii dadka ama shaqaalaha noqdaan ama ha noqdaan dad walaalo ah oo guri ku wada nool mar walba iska ilaaliya uqdad nafsiga wuxuu dhaliyaa dhibaato fara badan marka waxaa dhacday gabadhii in ay ku fikirtay gabadhan in ay sumayso marka waxaa dhacday way baxday waxay aaday farmasiyo waxay soo iibisay sunta ugu halista badan ay soo iibisay guriga ayay ku soo noqotay cuntadii ilaan ayada ayaa guriga ka shaqaynaysa waxay samaysay cunto u gaar ah oo iyada u gaar ah waliba waqtiga ay siinaysa waxay ku talgashay waqti uusan joogin ninka waxay doonaysaa ninka inuusan sumoobin laakiin waxay doonaysaa tan inay israafiso oo gurigaas ay ku yeelato laakiin kuma fikirin in uu wax walba ilaahay awood u leeyahay arinta uu fashilin karo iyo haddii ayada dhimata hadda aysan gurigan laga yaabay inaysan awood ay ku noolaato aysan u heli doonin waxaasoo dhan kuma fikirin waxay samaysay gurigii gabadhii waxay cunada ugu dartay sun fara badan gabadhana daacad ay iska ahayd cunadii way cuntay waxa u hirgashay in gurigan gabadhan ay gabadha joogta ay sumayso weliba sunta ay ku hubsato ay ugu talagashay suntaasna waxay ahayd sun adiga 10 saacadood kadib laga yaabo wadnahaaga inuu shaqayntiisa daciifnimo ku yimaado ugu dambeyn wadnaha uu fariisto ma ahan sun markiiba qofku iska garan karo oo uu ku soo booda aysan ahayn waxay ahayd sun markii adiga aad isticmaashid in muddo kadib in yar daciifnimo wadnaha ku imaanay ugu dambeyn wadnaha istaajinaysa marka hore ay ka fikirtay sunta si professional ay soo iibsatay oo talgal bay ka ahayd maalintii sunta ay siisay gabadhii waxaa dhacday suntii in yar ay wadna garaac isku aragtay odageeda u sheegtay maanta wadnaha ayaa garaacmaya saako kale ay cuntay xaawo kale waxay leedahay xaaji wadnaha ayaa garaacmaya ma garan karo wax igu dhacay markii ugu dambeysay wadna garaac ayaa ku soo saaciday habeenkii markay idbartamaha 12 ama 6 saac habeenimo waa la carray isbitaalka la carray gabadhii dhaqaatiirtana waqtiga hadeer casrigan lama joogin dhaqaatiirtana waxay iska ahaayeen dhaqaatiir xoogaa sidii hore ma aan iqlabadan casriga ma oolin waxay mar walba wuxuu dhahay wadnaha ayaa gabadh xaaska galaayaa isla markii qalabka wadnaha ay la soo boodeen baaristiisa ilaa iyo wadnaha ay istaagaan oo gabadha meesha ku guriyato cid ogeed male gabadh in la sameeyay cid baartana male marka waxaa dhacday gabadhii ayaa la soo qaaday meedkeedii guriga ayaa la keenay waxa arinta fashiliyay markii meedkii la meeray ay gabadhii waxaa sankeedii iyo afkeeda ka yimid suntii ayaa afkeeda ka yimid ilaahay mar waliba xaqa uu cadeeyaa marka dadkii meedka meeray ayaa soo baxay wayna garteen sunta urkeeda ay garteen way soo kaceen ninkeeda ayaa loo yeeray waxa la gabadhan sun ayaa sankii afka ay ka keentay marka saas ay wax u jiraan wadna garaac kaliya maahan gabadhan sun ayaa la siiyay sun ay cuntay saas ay ku dhimatay wadnahana saas ay ku istaageen runtii ninka odayga ahaa meel uu raac uu garan waayay gabadha suntan meesha ay ka soo gaartay laakiin gabadhii shaqaalahan waxay iska dhigtay qof ka naxsan oo la yaaban oo ooynaysa oo dhibaatoonaysa oo arintan mucjiso la tahay inay iyada geysana way isqarinaysa runtii arintii waxaa soo gashay dawladii ayaa lala socodsiiyey ay askartii ayaa timaaday sirbaariyaashii gabadhii waa la qaaday meedkeedii dib ayaa loo qaaday CID ayaa la geeyay CID ayaa la geeyay waxaa la doonayaa meedkii in la baaro suntan xilligii la siiyey in la baaro ayaa la doonayaa si arinta ay u cadaato markii ay imaadeen CID gabadha shaqaalaha waaga ayaa ku bariyay naxtin ay meel istaagtay garan weyso waxay isleed gabadhan arintan markii ay dhimatay arinta meesha ay ku soo gabagabowaysaa adagna guriga saas ay kula wareegaysaa arintii way daba dheeraatay waa inoo qaybtay saddexaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.